waftigii hogaaminaya wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee safarka shaqo ku joogay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceergabo ayaa saaka ka qayb galay saankii ugu horeeyay ee lagu sameeyo wadada xidhiidhisa Sanaag iyo Togdheer oo laga bilaabayo duleedka magaalada Ceergabo. Munaasabadii bilowga sarfaygan wadada ayaa waxa ka soo qayb galay maareeyaha ku-xigeenka wadooyinka Soomaaliland, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga, wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, wasiirka wasaaradda biyaha, gudoomiyaha gobolka Sanaag, maayarka degmada Ceergabo, isduwayaasha hay'adaha laamaha dawladda, saraakiisha ciidamada, injineerada wadadan, boqorro, salaadiin iyo marti sharafaad u tiro badan. Waxaana ugu horreynba munaasabadaasi ka hadlay maareeyaha ku-xigeenka hay'adda wadooyinka Soomaaliland Maxamuud Daahir Jaamac oo faahfaahin ka bixiyay guud ahaanba hawlaha bilowga wadadan. Waxaana maareeyaha ku-xigeenku shaaca ka qaaday in isaga iyo kooxda injineerada ee weheliya ay horbixinayo u yihiin wafdiga hogaaminaya wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland oo ku soo foolay gobolka Sanaag si ay u dhagax dhigaan bilaabida wadada Sanaag iyo Togdheer. maanta waad aragtaan wadadii Ceergabo iyo isku xir lahayd Burco oo laami ah ayaa waxa bilowday sarfaygeedii. waad aragtaan injineeradii ba marayay insha Allah maalinta ciidana hawlgal ballaaran oo wafdi ballaaran oo soo socdo aan rajeynayno inuu inoo yimaadaan ilaa bari ilaa dambe ayaa insha Allah maalintaana inoo bilaabmi doona. waxaan u sheegaynaa dhammaan waa guul u soo hoyatay dhammaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. reer Sanaag kaliya guushaasi gaar uma aha, dhammaan dadkoo dhan ayay u tahay guul in la helo wadada isku xiri doonta Ceergabo iyo Burco. ayaguna halkaas ka hadlay maayarka degmada Ceergabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Maxamuud Geela Dacar oo labadooduba halkaas ka cadeeyay muhiimadda wadadani iyo sida ay u daafurayso kheyraadka gobolka ku dugan. waxaana ay labada mas'uul halkaas shaaca kaga qaadeen sida bulshada gobolka Sanaag ay diyaarka ugu yihiin ka qayb qaadashada dhismaha wadadan. boqor Axmed Cali Ducaale oo isaguna ku hadlay afka madax dhaqameedka gobolka Sanaag ayaa isaguna dhinaciisa halkaas ka cadeeyay doorka madax dhaqameedka gobolka Sanaag ee kaga aadkan hirgelinta wadada isku Sanaag iyo Togdheer, isagoo intaasna raaciyay sida bulshada gobolka Sanaag ay naf iyo maalba ugu huri doonaan bixinta qaranka wadadan. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Axmed Xaaji Cali Cadam iyo wasiirka wasaaradda biyaha Xuseen Axmed Cabdulle oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa iyaguna dhankooda ugu baaqay dhammaanba bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan reer Sanaag inay kaalin mug leh oo wax ku ool ah ka qaataan barnaamijka hirgelinta wadadan. barito wax kale oo laga hadlo oo furani ma jiro, dacwad kale oo taagani ma jirto. kulligeen waxaynu ka wada hadlaynaa oo lisaan xaalku noqonaya wadadaanu diyaar u heegan baanu nahay, waa ka duwannahay cid kaleba. dhibtu si gaaray noo taabatay, waxaanu heegan u nahay waxaanu adduun iyo xoolo iyo lacag haysanno iyo xoogba inaanu ku tabarrucno oo ilaa iyo milatariga jooga uu maalintiisa galo, bulayska khayrka qaba oo jooga inuu isla maalintiisa galo. 12 Oktoobar 2013 aniga maalintaasu meel bay igu qoran tahay, reer Sanaag oo dhan meel bay igu qoran tahay. reer Sanaag waxay ballan qaadeen diyaarna u yihiin wadadaas oo ay in badan sugayeen inay maanta waxba kala hadhin. wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Dr. Cabdi Daahir Cali oo gabagabadii munaasabada isaguna ka hadlay ayaa ku nuuxnuuxsaday sida xukuumadda uu hogaamiyo mudane Axmed Maxamuud Silaanyo ay muddada kooban uga rumaysay dhammaanba ballanqaadyadii xilliga kaambeynka doorashada ee bulshadu codkooda ugu hibeeyeen. waxaan sheegayaa madaxweynaha way ka go'an tahay, ballantii uu qaaday way ka go'an tahay, casiimadii uu qaaday waa ka go'an tahay, lacagtii iyo adduunkii loogu talagalay meel buu ugu diyaariyay. caalamkana inay nala caawiyaan oo qofkii wax qabsaday waxa loogu daraaye. caalamkana way ka go'an tahay in wax nagala qabto. dadweynaha shacabka reer Soomaaliland sida imikaba aynu arkayno bay diyaarka ugu yihiin inay qayb ka qaataan. waxa loo oran jiray wixii ragu kaco rabbina aqbalo way rumoba, wixii dadweynaha u kaco rabbina aqbalo way rumoba, wayna rumobayaan insha Allah ta'ala. hawshana sidaas ayay noogu socon doontaa. dhinaca kalena wafdigii hogaaminaya wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa shir jaraa'id ay maanta ku qabteen magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceergabo shaaca kaga qaaday inay guul ku soo afjareen dhammaanba hawlihii shaqo ee ay gobolka wafdigooda u yimaadeen, iyagoo bulshada gobolkana ku ammaanay midnimada iyo isku duubnida ay u muujiyeen muddada ay wafdiga gobolka ku sugnaayeen. waxaana ay ugu baaqeen shacbiga gobolka Sanaag dibad iyo gudaba inay dhexda u xidhaan sidii gobolkooda dhinaca horumarka u higsan lahaa gobolada kale ee dalka. waxaa kaloo iyaguna halkaasi ka hadlay xubno aad u tiro badan oo ku hadlayay afka cuqaasha iyo waxgaradka gobolka oo ku bogaadiyay kaalinta ay ka qaateen xoojinta nabadgelyada iyo walaalaynta bulshada gobolka Sanaag.